رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii xisnulmuslimka oo arkaartii kitaabka iyo sunnada ah ducaau nibaaxi lkilaabi eeyaha haddii ay qayliyaan bileyli habeenkii wixii lagu ducaysan lahaa idaa samictum buu dhahay nebiga haddaad maqashaan nubaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda iyo wanahiiqa alxamiiri dameerka qayladiisa bileyli habeenkii fatacawaduu billaahi ilaahay magangala minhunna xaggooda waayo fa inahunna ayagu yarayna waxay arkeen maa laa tarawna waxaadan adinku arkaynin, waxaadan idinka u jeedin ayay ayagu u jeedaan ay arkeen. macnaha shaytaanka loola jeedaa innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum. shaydaankii qabiiladiisa meel aysa idinka ka arkeen ayay idinka arkayaan buu dhahay ilaahay. marka eyga qayladiisa iyo dameerka qayladiisa labadaba ilaahay ayaa laga magan galaa. diiqa waxaan soo tilmaannay haddii uu qayliyo ilaahay fadligiisa weydiista malag ayuu arkay. dameer hadduu qayliyo fatacawaduu billaahi min ashaytaani fa inahu ra'aa shaytaana, shaytaan ayuu markaa arkay dameerke. eygana waa la mid. sidaa darteed ayaa xadiis wuxuu noo tilmaamayaa ducadan in lagu ducaysto oo macnaha laga wada in ilaahay laga magan galo subxaanahu wa tacaala. adducaau duca waaye liman sababtahu qofkii aada cayso. matalan qofka muslimkaa waxaa dhici karta mararka gobol ka mida inay qaladaad ka dhacaan, inay shadmo iyo aflagaada noocaasi ka dhacdo. qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow fa ayumaa mu'min walba oo sababtuhu aan caayay fajcal daalika uga dhig arrintaa lahu asaga qurbatan dhowaasho ilayka xaggaaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha. rasuulka wuxuuna barayaa ducadii aan ku ducaysan lahayn haddii shatmo iyo aflagaado ay naga dhacdo qof muslima dhexdeeda. waxaad dhahdaa ilaahayow mu'min walba oo aflagaado aan gaarsiiyey inuu kugu soo dhowaado markaa uga dhig yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo hawaabii ajir ka sii maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa almuslimu qofka muslimkaa idaa madaxa almuslim marka uu muslim ammaanaayo. waxaad rabtaa inaad qof ammaanto seed markaa dhihi lahayd. qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi idaa kaana axadukum axadkiin haddii uu ahaanaya maadixan qof ammaanaya saaxibahu saaxibkiisa waa inuu iska dhaafo. hadduu dhaafi waayo laa maxaalata shaki la'aan ay noqoto oo laga maarmi waayo falyaqul ha yidhaahda axsibu fulaanan hebel waan u malaynayaa wallaahu xasiibuhu ilaahay ayaa xisaabihiisa ahe. inuu hebel fiican yahay oo qof fiican yahay ayaan u xisaabanaa. ilaahay ayaa sirtiisa og. wallah usakiya u ammaani maaya cala allaahi ilaahay korkiisa axad aan u ammaanaya ma jira. axsibuhu waan u malaynayaa in kaana waa haddii yaclamu uu yahay mid ku og daaka sidaa inuu yahay kada wa kada ayuu yahay dheh. hebel wallaahi saas iyo saas inuu yahay ayaan u malaynayaa. waa axsibu inaad markaa dhahdo. ilaahay baa xasiibihiisaa. ilaahay axad aan u ammaanayaa ma jiro subxaanahu wa tacaala. falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. naftiina ha dahirinina, ilaahay ayaa yaqaana qofka taqiga ah ee cabsida markaa ku socdee. ilaahay asagaa markaa yaqaana. sidaa darteed qofka inuu qof kala ammaano waa mamnuuc. haddii lagama maarmaan ay noqoto qofkan in la ammaano ma ahee si kale xaaladdu ay noqon weyso, wallaahi hebel qof fiican inuu yahaanu arkaa dheh. ilaahay baase xasiibihiisaa. maa yaquulu lmuslimu muslimku wuxuu dhihi lahaa idaa zukiya haddii la taskiyeeyo. haddii la ammaano waa lagu ammaanay seed dhahaysaa. maanta ammaanta waxaan ka qaadnaa kibir iyo isla weyni. allaahuma laa tu'aakhidnii dheh ilaahow ha ii qabanin bimaa yaquuluuna waxyaabaha ay idhahayaan ama ay ku hadlayaan. waqfir lii ii dhaaf maa laa yaclamuuna waxaysan iga ogeyn. wajcalnii khayran mimaa yadunnuuna
khayr iiga dhig waxay iiga malaynayaan malaha ay ii malaynayaan khayr iiga dhig ii dembi dhaaf dembiga aan sameeyo iigu aysan ogeyn oo iigu kor ammaanayaan sidaa ayuu qofku dhahaa haddii markaa la ammaano allaahuma laa tu'aakhidnii ilaahayow ha ii qabanin bimaa yaquuluuna waxa ay ku qowlayaan waqfir lii maa laa yaclamuuna waxaysan ogeynna iiga dhaaf wajacalnii iga yeel khayran mimaa yadunnuuna waxay ii malaynayaan kayfa yulabbii sidee buu u talbiyeysanayaa almuxrimu qofka muxrimkaa fi lxaji aw alcumrati xajka iyo cumrada talbiya loo baahan laf ahaanteeda dadka gobolka midaba ku baraarugsana in labeeg la akrinayo cumrada marka la cumraysanayo waa la talbiyeysanaa waxaad leedahay labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka labayka ku ajiibay ilaahayow allaahuma ilaahayow labayka waan ku ajiibay labayka ajiibid ayaa ku ajiibay ilaahayow laa shariika laka wax shirkiya oo kuu sugnaaday ma jira labayka waa ku maqlo waa ku ateeco waa ku ajiibay ina alxamda mahad iyo wanicmata nimcaba laka adigay kuu sugnaatay waalmulka mulkiba laa shariika laka wax shirki oo kuu sugnaaday ma jiro qofku markuu xajinayo uu cumraysanaayo saasuu talbiyada u akrinaa qofku waa inuu xajka xirtaa cumradana xistaa labayka xajde ama labayka cumr ilaahayow cumro ayaan xirtay oon kaa ajiibay markaa kadib labayka allaahuma labayka aqri labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka hal mar waa dhihi kartaa marka aad cumraysanayso ama xajka qofku inuu ku celceliyo talbiyadaa loo baahan yahay ilaa laga gaaro dhagax tuuradka qole waxay dheen carafo marka laga soo taga ayay talbiyadu go'daa qole waxay dheen dhagxaanta tuurashadeeda subaxdii marka la gaaray go'aysaa allahu akbar isku beddelaysaa maalinta ciidda oo takbiirtaa la akrinaa sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala maca daalika takbiirta maalinta ciidda saasay ku bilaabataa maalinta tobanaadka markaad cumrada xerato oo labeegta aad akhriso horaad u sii soconaysaa cumradaadaad aadaysaa cumrada camal badan ma aha waxaa lagaa rabaa intaadan bixin inaad shardido oo dhahda ilaahayow allaahuma ina maxilli ilaahayow makaanka aan ku xalaaloobayo waa meeshaad igu xabisto sidaa haddaad dhahdo oo dhib kugu dhaco ama lagu soo celiyo ama aad jirato ama cumrada ay kuu socon weyso waad iska soo noqonaysaa timahaad jaranaysaa wax kafaara gud ama hadyi oo lagaa rabo ma laha ama qofku hadduu shardiga akhrin waayo intuu xaj cumro xirto oo cumrada aado ka gadaal ay dhacda in la soo celiyo ama se qofkii wadi lahaa uu waayo waxaa korkiisa noqonaysa kafaara gud ama hadyi sida ilaahay tilmaamay wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay u taam yeela buu dhahay ilaahay fain uxsirtum fama staysara min alhadyi haddii laydin xabaaso oo jidka laydinka soo noqo ama aad bukataan ama aad aadi weysaan ilaan dad badana intay dharka xirtaan iska dhiga in qofkii wada ay waayaan ama dhib kale markaa ku dhaca hadduu qofku shardiga akhrin waayo waxaa laga rabaa neef inuu markaa bixiyo dhigitaankaa dharka uu dhigay darteed shardigaa ku dar markaad tagta xaramka waxaad ka bilaabaysaa tawaafka 2 ragcadood oo sunno ah ma laha sida masaajidada oo kale ilaan axaadiistu waxay tilmaamaan beytka ama kacbada taxiitul masjidkiisa waa tawaafka hadduu qofku tawaafo way ka kaafinaysaa xaj aswadkuu ka bilaabaa qofka waa tawaafaya 7 mar in allaala inta axadka uu tawaafaya waxaa laga rabaa inuu daahir ahaado ama weyse qabo dumarka dhiigga caadada qabaa ka mamnuuca inay xaramka tawaafaan ama hadday xajinayaan waa loo ogol yahay acmaalaha kale inay qabtaan sida dhagax tuuradka carafa masdelifa iyo wixii markaa la mid ah xaramka mamnuuc ayuu ka yahay naag umul ah ama naag mataqaanaa ah dhiig caado qabta ima inta kale waa loo ogol yahay ayagoo daahir ah rasuulku wuxuu yidhi salaada oo kala waaye ee u shardiya yaana la tawaafin axadka isagoo curyaana ama qaawan gabdhaha waxay ku tawaafi karaan dhar allaala dharkay qabaan midabkuu raba ha ahaado wax ka mamnuuca ma jiro daaqiliga dharka hoos laga qaato iyo kuwa kale labadaba dhar cadcad ahna uma go'na dumarkee waa ka mamnuuc weli karaahiye ayuu u yahay dharka cadcadka ah ama gabdhaha waxaa lagu ammaanaa dharka ka soo haray caddaanka
waxaad arkaysaa naagaha badankooda dhar caddaana inay ku dawaafaan waa shay mamnuuca. dhar kasta ee labisa ayay qaadan kartaa oo jilbaab ah. wejiga inay xirtaan iyo gacmaha ayaa ka mamnuuca dumarka ilaa rag ajaaniba inay arkaynin maahane. hadday rag ajaaniba arkayaan wejiga waa daboolan karaan, laakiin weji xirka madaxa ku dhega iyo wejigaa ka mamnuuca. caaisha waxay tidhi haddii aan ahayn nebiga annagoo la xajinayna rugbaan iyo rag haddayna soo maraan wejigeena waxaan ku soo raaricin jirnay jilbaabta iyo dharka aan markaa wadanee weji xirka ah. waxaa la rabaa madaxa mid ku dhegan oo kor laga soo laalaadiyo sida daahoo kale wejiga ugu soo noqonayo inuu ahaado. amaa dharka wejiga ku dhegaya mamnuuc ayuu ka yahay dumarka markay tawaafayaan amay cumraysanayaan amay xajinayaan. intaa ka gadaal qofku waa tawaafa. dumar rag waxay ku xarmanayaan dharka tolan oo dhan ayaa ka mamnuuca. laba go oo cadcad ah ilaa in la waayo maahane. sidaa darteed marka la tawaafaayo oo rag la gaaro meesha xajra aswadka ugu horayntii qofku waa ishaara. hadduu taabto uu shumiyo rasuulkaa samayn jiray. cumar ibni khitaab ayaa xaju aswad ka shumiyey. markaasuu dhahay waa ogahay dhagax inaad tahay, waxna ma ii dhibi kartid waxna ma iigu anfici kartid, laakiin nebigaan arkoo ku shuminayo maahana maa qabatuka ma u ku shumiyan buu dhahay. intaan aad iga heshay waad nebigan ku dayanaa sala allahu calayhi wasalam. taasoo markaa tilmaamay arrintaasaa markaa loola jeedaa. haddii qofku uu awoodi waayo inuu isku dhibo ma aha, gacanta ku ishaar allahu akbar dheh. qofku waa tawaafaa duco alla ducaduu rabuu ku ducaysanaa. duco qaasa ma jiro. af soomaali ku ducayso, af kale ku ducayso, af carabi kulli ilaahi waa yaqaanaa subxaana wa tacaala. sidaa darteed waa tawaafaysaa 7 mar. markuu dhammeeyo qofku waa inuu ku tukadaa maqaamu ibraahim gadaashiisa 2 ragcadood. ilaahay baa yidhi wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla. maqaamu ibraahim meel lagu tugta ka dhigta. haddii zaxmay tahay oo meel kale aad weysa meel kastoo ka mida ayaad ku tukan kartaa, dhibaata ma laha. rakacada koowaad waxaad ku akhrinaysaa faatixa iyo qul yahalkaafiruun. rakacada labaad faatixa iyo qul huwa leh. taa waxaa loola jeedaa shirki la'aan waayo. sanab 360 asnaamaa lagu caabudi jiray kacbada. maanta wixii ka dambaysa ma jiray qul huwa allaahu axad allaahu samad. waa aayadaha tilmaanta ilaah iyo sifooyinka tilmaama. intaa ka gadaal waxaad aadaysaa safa iyo marwa. waa tawaafaysaa safa ka bilow, marwa ku xiji. sidaa ayaa la yeelaa. rukniga hoos markuu u soo dega axadkoo waadiga uu yimaado, labada lambee cagaaran qofku waa ordaa. raggaa ordee, dumarka orodku waa ka mamnuuc. sidaa darteed 7 markaa dhamayso qofku waa gaabsanaa ama waa xiranaa. labada xaaladba dumarku ayagu waa inay gaabsadaan keliya oo xirasho korkooda maa cimrada intaasay ku eg tahay. sidaa darteed labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka. altakbiiru takbiirtii waaye idaa ataa qofku hadduu yimaado alrukna alaswada rukniga aswadka ah. rukn alaswad waxaa loola jeedaa meesha hadda aan tilmaanay marka uu tawaafaayo. waa meesha xalaamada uu ka bilowda tawaafka. taafa annabiyu nebiga wuu tawaafay sala allahu calayhi wasalam bilbeyti. beytka ayuu tawaafay calaa baxiirin asagoo rati saaran. kulamaa ata rukna mar kasta oo rukniga uu yimaado iyo xajru aswadka ashaara ilayhi bishayin shay ayuu ku tilmaami jiray cindahu agtiisa ahaaday wakabbara uuna kibaaranayay sala allahu calayhi wasalam. xadiidka waxaa laga qaadanaa rasuulka inuu beyt ka tawaafay asagoo baxiir ama rati saaran. qofku waa ku tawaafi karaa asagoo sariirta saas loogu wado, mashaakil markaa kuma sugna. laakiin mar walba uu rukniga yimaado ul haddaad haysato ku tilmaan, haddaadan haysan gacantaada ku ishaar allahu akbarna dheh. adducaau bayna rukna alyamaaniy waalxajari alaswadi. ruknulyamaaniga iyo xajru aswadka inta u dhaxaysa wixii lagula ducaysan lahaa. ruknulyamaani waxaa loola jeedaa meesha maqaamu ibraahim markaad sii dhaafto oo xaj ismaaciil aad dhaafto, dhanka kale aad ku soo wareegato oo aad u soo dhowdahay meesha xajru aswadka dhinaca ayaa la yidhaahdaa ruknulyamaani. meesha ayaa markaa loola jeedaa. mar kastoo meesha qofku uu yimaado wuxuu dhahayaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaari. rabbiyowna sii adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan, cadaabka xanuunka badana naga ilaali. ducaau lwuquufi wuquufka ducadiisa waayo cala asafaa waalmarwata. safa iyo marwa marka aad korto iyo markaad u dhowaato waxaad dhihi lahayd lamaa dana sala allahu calayh wasalam. markuu u dhowaaday nebiga min asafaa qara'a wuxuu akhriyey aayadda suuratulbaqara ku jirtoo ah ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا waa markaad safa sii kori rabto aad wadi korin, markaad socodka dhammayso balcadda aad sii kori rabto aqri aayadda ina asafa buurta safa iyo walmarwata buurta marwa min shacaa'ir illaahi bay ka mid yihiin calaamaadka ilaah. faman xaja albayta qofkii beytka xajinaya aw ictamara ama cimraysanaya falaa junaaxa calayhi korkiisa dembi maa yatawafa bihima inuu ku tawaafo. waman tatawaca khayran qorkii khayr badsada faina allaha shaakirun caliim. abada'u bima bada'a allahu bihi rasuulku wuxuu yidhi waxaan ka bilaabayaa kuu ilaahay ka bilaabay. ilaah muxuu ka bilaabay ina asafa walmarwata safuu ka bilaabay. ina almarwata wasafa ma dhihin. waxaad ka bilaabaysaa aayadda say ka bilowday ina asafa fabada'a bisafa safa ayuu ka bilaabay nebiga. faraqiya calayhi wuu koray xataa ra'a albayta markaa safa kortisna markii ha ka soo degeen kor usii soco ilaa beytka aad ka aragta waa kacbade. faistaqbala alqibla qiblada ayuu qaabilay. fawaxada allaha ilaahay ayuu waxiday. maxaa waaye ilaah buu waxiday waa laa ilaaha ila allah ayuu yidhi. wakabarahu wuu weyneeyey. waqaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. laa ilaaha ila allahu waxdahu anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdahu. intaasaad akrinaysaa markaad kor usii korto. laa ilaaha ila allahu waxdahu anjaza u fuliyey yaboohiisa wacdahu wacdigiisii yaboohiisii fuliye wanasara cabdahu addoonkiisii u gargaaray wahazama alaxzaaba xisbiyooyinkii iyo jamiicooyinkiina waxdahu keligiis jebiyey. uma kabacdi daca wuu ku ducaystay nebiga bayna daalika kaabeynkooda. qaala midla haada sidaas ayuu ku celceliyey 3 maraatin alxadiid wafiihi xadiidka waxaa ku dhex jiray fafacala wuxuu ku sameeyey nebiga cala almarwati buurta marwa kamaa facala cala asafaa sidii safa uu ku sameeyey oo kale. adducaau duco waaye yowma carafata carafa maalinteeda. xajka yowmu carafa waa maalinta ugu badan ee ilaahay addoommo uu naar ka xoreeyo subxaana wa tacaala. sidaa darteed yowmu carafa waa maalin cajiib badan. yowmu carafa waa maalin ilaahay intuu isu soo qurxiyo addoommadiisa u soo dhowaanayo. malaa'igtuu kula faantamaa fiiriya ayuu leeyahay addoommadeyda hal dhar oo qaasa ayay wataan. amiirkooda iyo kan loo taliya dhammaan waa wada joogaan. hanigooda iyo faqiirkooda waxaa ka muuqata akbar iyo ashcad waxay ka yimideen min kulli fajin camiiq. dhammaantood markhaati iiga noqda malaa'igay intii carafo taagan inaan dembiga u dhaafay ayuu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. khayru ducaa'i duca midda u khayr badan waa ducaau yowmi carafata carafa maalinteeda ducada lagu ducaysto. wa khayru maa qultu wixii aan idhi ana aniga iyo wannabiyuuna nebiyaashii oo min qabli igu horaysay midka u khayr badanna waa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. intaasaa carafo lagula ducaystaa. wax allaala waxaad doonto addoon adduun iyo mid aakhirana waa weydiisanaysaa ilaahay. addikru cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraamka agtiisa wixii ilaah lagula xusi lahaa. mashcarulxaraamka intee waaye? maalinta carafo ay dhammaato qoraxda markay dhacdaa laga soo tagaa. salaada maqribka lama tukanaya maalinta oo masdelifa lagu jamcina. qoraxda markay dhacda dadka carafo waa ka soo dhaqaaqayaan. masdelifa la imaanaa waa habeenka tobanaadka maqribkii cishaha meesha lagu jamcina. waa la seexana habeenka tobanaadka nebiga ciyow ayuu seexday. ileen beri waa yowma xaji alakbar maalinta xajka weyn oo howl badana la qabana. dhagaxyaa la tuurana, xoolaa la qala, madaxyaa la xiirana, tawaaful ifaadaa la samayna. maalinta tobanaad waa maalin camal weyn markaa la qabanaayo. sidaa darteed dhaqsu iska seexan jiray nebiga habeenka tobanaadka ah. marka salaada subax loo soo kaco waa la tukanaa. waa marka uu mataqaanaa salaada subax uu dhasho dhaqso ayuu u tukan jiray nebiga. maca daalika meesha ayuu qofku jooga waa laga soo dhaqaaqa. intuu dhagxaanta ka soo qaato wuxuu imaanayaa mashcarulxaraamka sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. wadkuru allaha cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraamka agtiisa ilaahay ku xusa waa marka masdelifa laga soo tago. mar allaala marka masdelifa laga soo baxo waa maalinta tobanaadka oo dhagxaanta tuurashadeeda loo sii socdo. waaga markuu baryo salaada subax lasoo dugtaa laga soo dhaqaaqaa masdelifa.
waxaa kaa hor imaanaya meesha lagu magacaabo waadi batna muxasar, waa meeshii maroodiyaasha lagu xabisay markay damceen inay kacbada ku weeraraan ayaa meesha ilaahay ugu soo diray tayran abaabiila, shimbiro oo koox koox ah. meesha markaad timaada ha fadhiisanin, mana la istaago, orodaa lagu maraa. ilaa nebiga sala allahu calayhi wasalam way noo imaan doontaa, ma istaagin, isla markii waa gudbay meesha. dadaad arkaysaa maanta batna muxasarka iska jiijiifa, waa meeshii dadkii lagu halaagay. shay mamnuuc ah waayo marka batnulmuxasarka aad gudubto mashcarul xaraamkaa ku xiga, meeshaasaad imaanaysaa meesha ilaahay lagu tuugaa ilaa waaga uu xoog uga baryo, qoraxda ay soo baxdo, markaa ka gadaala laga soo dhaqaaqa. waxaa la soo aadaa muno dhagax tuurashadii waaye. rakiba sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu soo koray alqaswaa'a, hashiisii qaswo ahayd, xataa ata almashcara alxaraama, ilaa mashcaraamkii uu yimid. faistaqbala alqibla, qiblada ayuu qaabilay, fadacaahu wuu ducaystay, wakabbarahu, ilaah buu weyneeyey, allahu akbar buu dhahay, wahallalahu, waa tawxiidsaday, wawaxadahu, waa waxiday. falam yazal, kama zuulin nebiga sala allahu calayhi wasalam waaqifan, inuu taagnaanayo mashcarulxaraamka xataa asfara, ilaa uu waagii ka baryay jiddan, si fiican uu uga baryo. marka salaada subax la soo dugtaa Musdalifa laga soo tegey, waxaa la soo istaagay mashcarulxaraam, waa la taagnaanaa, ilaahayaa lagu tuugaa ilaa waaga xoog uu uga baryo, qoraxdana aysan weli soo bixin. laakiin cirbadii kaa dhacda aad qaadan karta iftiin darteed, qoraxna aysan soo bixin. fadafaca wuu soo baxay qabla an tadluca ashamsu, intaysan qoraxda soo dhalanin ka hor. wuxuu soo aaday meesha lagu magacaaba mina iyo tuurashada dhagxaanta. atakbiiru waa takbiir cinda ramyi aljimaari maca kulli xasaatin. talbiyadii waa go'day, dhagxaantii la tuurana, dhagax kasta markii la tuurayo allahu akbar in la dhaho ayaan ka gelaynaa meeshana. atakbiiru in la takbiirsada cinda ramyi aljimaari, jimaartii dhagxaanta tuurashadeeda agteeda, maca kulli xasaatin, dhagax kasta micigiisa. 7 dhagax intaad hal mar qabatood fardhisa ma aha, mamnuuc waayo xaaladda nooca mana kaa gudayso. maca daalika dhagax walba marka aad tuuraysa allahu akbar, midka kale waa inuu ka daba maraa, ka kale waa inuu ka daba maraa. dhagxaanta la tuurayo waa inay ahaadaan dhagaxa midka farganka lagu rido oo kaleo aad u yaryar, ama xumuska oo kale, kaasaa markaa loogu talagalay. ama dhagax weyn inaad qaadato mamnuuc waayo. dadka waxay u maleeyaan shaydaan inuu meesha fadhiyo, marka 7 dhagax dhammaataa dadka qaarkood inay kab soo qaataan. lacnatullah, shaydaan axnaa noocaas dhahaay, wax kama jira arrintaana. 7 dhagax keliya ku tuuro, dhagax kasta markaad tuuraysa allahu akbar dheh, wax kaloo laguu dirsaday ma laha. yukabbiru, qofku waa kibaaranaa kulamaa ramaa, markastuu tuuraya bixasaatin dhagax cinda aljimaari, jimaarta ahalaaثati ee 3daa agtooda. 3 jimaar waayo, ama waa 3 jabal inta la tuuro, waa 3 buurood. maalinta 10aadka ah waa maalinta ciidii, hal jamaraad bisaa la tuurana, waa jamratu lkubraa ama jamratu lcaqaba. 7 dhagax ku dhufo waa ka tegaysaa, waa maalinta 10aadka ah. madaxaagaad xiiranaysaa, xoolaad qalaysaa, haddii wax lagugu leeyahay, haddaad udxiyo gelayso xaramkaad aadaysaa, tawaafu ziyaara ama tawaafu lifaada tawaafaysaa, minaad ku soo noqonaysaa. habeenka 11aad minaad seexanaysaa. subaxda 11aad saakay shalay markii ciidda ahayd waxaa la tuurtay subaxii hore, laakiin maalinta 11aad bacda duhra la tuuranaa dhagxaanta. 3ay noqonayaan, buurta yar ka bilow, ta dhexe ku xiji, tii shalay oo aad tuurato weyneed waa ugu dambaysaa maalinta 11aadka. maalinta 12aad saasoo kale. maalinta 12aad qofku hadduu tuurto waxaa u bannaan inuu iska soo bixi karo, sida ilaahay yidhi, faman tacajala fii yawmayni falaa isma calayhi. 2 maalmood qofkii ku soo degdega falaa isma calayhi. waxaa kuu bannaan inaad soo joogto maalinta 13aad haddana aad soo tuurato. faman ta'akhara falaa isma calayhi, qofkii ta'ahuro 13 soo suga oo haddana intuu jamaraadka soo tuurtay iska soo baxa, falaa isma calayhi buu dhahay ilaahay. liman ittaqaa baa la raacsiiyey. ta'ahurkaa fadli badan macnaha, laakiin labada xaaladba way bannaan tahay. jimaari athalaati, uma yataqadamu, kadib wuu hormarayaa qofka, wayaqifu, waa istaagayaa, yadacu, ilaahay buu tuugaa mustaqbila alqibla, asagoo qiblada qaabila, raafican yadayhi, gacmihiisa kor u taagaya, bacda aljamrati, jamrada kadib, aluulaa ee hore, waathaaniyati tan labaad. amaa jamratu lcaqabati, jamratu lcaqaba waa buurta weyn, fayurmiiha, wuu tuurayaa qofka, wayukabbiru, waa kibaarana cinda kulli xasaatin, dhagax kasta agtiisa, wayansarif, waa iska soo gadoomaya, walaa yaqifu cindahaa, agteedan lama istaagaayo.
maalinta 10aad marka buurta la tuurto ducada ma jirto waa iska soo baxaysaa. maalinta 11aad 3 waaye. tan yar markaad tuurato qiblada qaabil ilaahay bari, tan dhexe tag haddana 7 dhagax ku dhufo qiblada u soo qaabil inta dadka ciriirigooda ka soo baxdo meel bannaan imow qiblada u jeeso ilaahay tuug ka tag haddana wax yar kadib jamrada ugu dambaysay 3aad tuuro waa jamratul caqaba agteeda ha istaaga waa iska soo dhaqaaqaysaa. macnaha saddexda maalmood ama 2 maalmood oo damba saasaa la yeela. ducaau altacajuli waalamru asaari, wax kaa yaabiya markaad aragtii amar fudud waxaad dhihi lahayd subxaana allah iyo allahu akbar. labadaa kala dheh subxaana allah qofka waa inuu afkiisa caada uga dhigo. wax walba qofku waa inuu subxaana allahi yidhaahdaa. dadka gobol ka mida halqabsi ayay leeyihiin. qof walba waxbaa u halqabsi ah. alla awoowow, alla aabbow, ba-ayay iyo waxyaaba lamid ah. waxaa fiican qofka hadallada fiican inuu ka dhigto oo caado ama afkiisa uu halqabsi ugala dhigo. subxaana allah, allahu akbar, alxamdu lilah iyo wixii markaa lamid ah. maa yafcalu man ataahu amrun yasuruhu, wuxuu samayn lahaa qofkii amar farax geliya u yimid. kaana nebiyu, nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu amrun, amar hadduu u yimaado yasuruhu ou ku farxo ow amase yusaru bihi farax gelinaya, khara saajidan sujuud buu la dhici jiray. shukran lilaahi tacaala, shukran lilaahi, ilaahay shukrin darteed tabaaraka khayrkiisa batay oo watacaala sarreeye. mar allaala wax ka farxiya hadduu u yimaado rasuulku waa sujuudi jiray sala allahu calayhi wasalam. sujuud ayuu samayn jira. maanta qayilaadaan bixinaa, qofkaa sakareedka ka dhiibnaa, waa la boodboodaa, cayaaraa la sameeyaa, waxyaabo noocaasa. arrin faraxsan hadday noo timaado arrin noocaasaa la samaynaa. rasuulkana waad u jeedaa shukri ayuu ilaahay ula dhacaa sujuud, oo sujuuddan waxaa lagu magacaabaa sujuuddii shukrinta. maa yaquulu man axassa wajcan fii jasadihi, qofkii jasadkiisa xanuun ka dareema wuxuu samayn lahaa. meelaa ku xanuuntay maxaad samaynaysaa? marka hore ma gubaysaa? waxyaabo kale maa ku samaynay? takhtarka maad geynaysaa? maya. dac yaddaka gacantaada saar cala aladii meesha korkeeda ta'allama ku xanuunaysa oo min jasadika, jasadkaaga ka mida. waqul dheh bismi illaahi 3 mar, waqul dheh 7 maraatin 7 marna acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru. waa raysanaysaa idin ilaaheeye. 3 mar bismi illaahi dheh, 7 marna acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru. acuudu billaahi, ilaahay ayaan magan galay, wa qudratihi qudradiisa, min shari maa ajidu, sharta aan helaya xanuunkeedii, wa uxaadiru, taasaan ilaahay ka magan galay dheh. ducaau man khashiya an yusiiba shay-an bicaynayhi, qofkii ka cabsada in indhihiisa uu wax ku asiibo wixii marka uu dhihi lahaa. idaa ra'aa axadukum, ilan cayuumanaasku waa shay dhib badan. waxaa loo baahan yahay dadka wax cayuuma ama dadka wax arka ama shay fiican markay arkaan inay aad iyo aad ula dadaalaan, khayr iyo wanaagna ay markaa ku hadlaan. saasaa markaa la rabaa. qofka markaad shay fiican ku aragto u duceey. waa inaad dhahdaa maasha allah iyo hadallo markaa lamid ah. canug yaraa la dhalaad arkaysa, maca daalika say ilmaha u koran aan u koray, dhaqso koray amase dhaqso soconaaya, dadku waa ku kor hadlaan. kan fiiriya iyo waxyaaba lamid ah. xaaladda noocaas mamnuuc waayo. qofka shay haddaad ku aragto waa inaad ilaahay mahadiisa u samayso una ducayso. walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ila billah. saasaa markaa la yidhaahdaa. idaa ra'aa hadduu arka axadku xadkiin min akhiihi walaalkii ow min nafsihi ama nafsadiisa oo min maalihi ama maalkiisa maa yucjibuhu, wax ka cajabgeliya. dukaanuu furto wax yara u saarnaa, 7 maalmood kadib aad aagto dukaankii u kacay, falyadcu lahu bilbarakati, baraka ha ugu duceeyo. waa laysxasdaaba maanta, maxaa laysugu duceeyaa oo khayr iyo wanaag ilaah laysugu baryaa. nin walbaa ninka kale uma rabo inuu khayr iyo wanaag gaaro. maca daalika walaalkaa u tamini, waatay dadku dhahaan walaalkaa khayr ugu duceey hortiis aad heshidid. marka sidaa darteed falyadcu lahu bilbaraka, fa ina alcayna xaqun, ishu waa xaq buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. isha xaq waaye. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka in aad iyo aad loo dadaalo. khayr marka la arkay wax noocaas ah in ilaahay loo celiyo oo la yidhaahdo maa shaa allah. saasaa markaa fiican. maa yaquulu cinda alfazaci, argagaxa agtiisa wixii la dhihi lahaa. laa ilaaha ila allahu, ilaahay ma ahe ilaah kale ma jira dheh, xaqnima lagu caabudo. maa yaquulu cinda aldabaxi aw alnaxri, marka wax la gowracaayo ama marka wax la naxrinaayo waa isku macno dhow yihiin, laakiin naxriga inta badan waxaa loo isticmaalaa geela.
fasalli lirabbika wanxar waa dhundhow ilan geela sida caadiga ma loo qale waa la dhundhawaa maca daalika isagoo taagan ayaana la qalaa inta lug laga xiro sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay qofku markuu wax gowracaayo ama uu wax qalaayo wuxuu dhihi lahaa bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma minka walaka allaahuma taqabbal minii jiniya wax loo qalaa maanta booranaa loo qalaa xoolaha qaarkood bisinka waaba dhibaa lagu leeyahay qaasta nagaa booranaha sameeye iyo kuwa wax laga qaaciyo iyo bisinkao dhanba ma lagu magacaababa tafsiirkan ku soo marnay wa ancaamun lam yadkur ismu allaahi calayha magaxoole ayaa jira ilaahay magaciisa aan lagu qalin iftiraa'an cala allah ilaah baa lagu been abuuranaa jinnigii bisinka waa isdhibaa lagu leeyahay waa arrin dhib badan maca daalika waxaa la rabaa wax kastoo la qalaya bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma ilaahayow minka xaggaagay ahaatay walaka adayna kuu sugnaatay allaahuma ilaahayow taqabbal minii iga aqbal dheh wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.